dowladda Turkiga waxay soo bandhigtay markab dagaal oo aanay dad saarnayn oo ay farsameeyeen labadooda shirkadood ee kala ah shirkadda qaabilsan farsamada difaaca ee dowladdu leedahay iyo shirkad kale oo qaabilsan farsamada maraakiibta. markabkan ee noociisa ee Turkigu sameeyo ayaa dufcadiisa u horeysa waxay shaqada ciidamada geli doontaa dhammaadka sanadkan 2020 ama bilowga 2021 sida loo qorsheeyay, iyagoo labada shirkadood muddo sanada ah soo waday baaritaano cilmiyeed iyo kuwa farsamo oo wada jira. waana markabka xambaari kara qaybo ka mid ah gantaalaha oo dalabyada degdega ah dabooli kara, sidoo kalena qaadan kara qaybaha saanada dagaalada elektaroonikada ah, agabka tashuushka ku fura raadaarada iyo weliba agabka dhinacyada isgaarsiinta iyo wardoonka ee kala duwan. waana markabka dagaal soconaya wada shaqaynta kala samayn kara diyaaradaha nooca droonta iyo diyaaradaha kale ee dagaalka ee caadiga. maadaama uu yahay markab aanay dushiisa cidi saarnayn oo meel durugsan laga hagayo, waxaa loo dhameeyey dhammaan adeegyada lagama maarmaanka u ah gudashada waajibaadkiisa sida quwadda tiknoolajiyadeed ee digitalka iyo awoodaha kale ee kartadiisa gaarka uga dhigi kara. madaxa shirkadda Ares Master Otoko Zelanji waxa uu sheegay in maraakiibta noocana oo aan cid waddaa dul saarnayn ee ay farsameyntooda bilaabeen inay ujeedadoodu tahay sidii ay u fulin lahaayeen howlgallada ilaalinta, la socodka, basaasidda, ka qayb qaadashada dagaalada badda gunteeda ah iyo ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo marinada amniga istaraatiijiga. si gaara waxaa markab talagalay buuri Bahrul Ija iyo jasiiradaheeda, iyadoo howlgalkooda halkaasina uu qiimo dheeraada siin doono dowladda Turkiga iyo ciidamadeeda. dhankiisana xogeyaha guud ee shirkadda Meteksan Sayid Saljuuq Barsalan waxa uu cadeeyay inay markabkan u diyaariyeen agab dhammaantii dalka gudihiisa lagu sameeyey oo kala ah dhinacyada isgaarsiinta, raadaarada, duurbiinada elektaroonikada iyo qalabka kale ee weerarada elektaroonikada, isagoo intaa ku daray in qalabkan kala duwan loogu diyaariyey qaab u saamaxaya inuu la jaan qaado saanada kale ee ay ku qalabaysan yihiin ciidamada dalka Turkigu. mas-uuliyiinta labada shirkadood oo shir jaraa'id qabtay waxay sheegeen inay suuragal tahay in markabka la guddoonsiiyo dalalka saaxiibka la ah Turkiga, isagoo ah markab aanay aadamuhu shaki gelin karin awoodiisa, in badanna ka horumarsanaan doona kuwa la midka ah ee caalamka lagu haysto. kaalin ballaaranna waxa uu ka qaadan doonaa bay yidhaahdeen ilaalinta xeebaha Turkiga. soo bandhigidda markabkiina waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay dowladda Turkigu dagaal kaga jirto meelo ka baxsan xuduudaheeda sida Syria, Liibiya iyo koonfurta Qowqaaska. dagaalada oo ah kuwa ay kaga soo horjeedaan dowlado iyo quwado la xulafo ah oo isbaahaystay, iyadoo xilliganna ay ciidamada Turkiga oo ku go'aan qaadanaya macluumaadka sirdoonkoodu soo ururiyeen ay u tooghayaan suurtagalnimada inay dagaal la galaan quwadaha waaweyn ee caalamka qaarkood sida dowladda Ruushka, oo ay suuragal tahay inay si fool ka foola iskaga hor yimaadaan Syria ama gobolka Karabakh. sidoo kalena ay dowladda Faransiiska iskaga hor iman karaan khayraadka badda Mediterranean-ka. qaabka ay colaad suuragal ugu diyaar garoobayaan ciidamada Turkiga waxay noo cadayn kartaa iyadoo Arbacadii maanta ay ciidda Turkiga ka dhacayeen ilaa 12 qaybood oo dowladus military ah oo mid waliba oo meel gaar ah ka dhacayay, taasoo ka dhigtay inay ciidamadii Turkigu ku jiraan heeganka ugu sareeyay. dhanka kalena dowladda Turkigu waxay u diyaar garoobaysaa iska horimaad adag oo ay kala kulmi karto xukuumadda Mareykanka haddii uu soo baxo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo ahaa maskaxdii inqilaabkii Turkiga ee fashilmay 2016 markii uu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa xukuumaddii Barack Obama. haatana Joe Biden waxa uu ku ololeynayaa inuu xukunka ka tuuri doono Erdogan oo uu taageero siin doono xisbiyada cilmaaniga ee Turkiga si ay dariiqa doorashada ugu ridaan madaxweyne Erdogan oo uu Joe Biden ku sifeeyay inuu yahay siyaasi ka weyn waxa uu yahay. hadalka Joe Biden oo macnihiisu yahay inuu Erdogan ka weyn yahay madaxweynenimada Turkiga oo kaliya oo uu u taagan yahay inuu hogaamiyo caalamka Islaamka. allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaabiye jannaalow ciirdarroorsihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow
risa cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebow